wacan daawadayaal halkan warbaahinta Hiiraan online ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni inuu ishor istaag ku hayo 17 mashruuc uu hirgelinayo bangiga adduunka kuwaas oo la doonayo in laga hirgeliyo deegaanada Puntland sida bulshada ay uga faa'iideystaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiqafaar Cilmi Xange ayaa sheegay in dhammaan mashaariicdan ay diyaar u yihiin in la fasaxo balse ay u baahan yihiin saxiixa Puntland si loo bilaabo fulintooda. Xange waxa uu xusay in madaxweyne Deni uu diiday qaar ka mid ah mashaariicda halka kuwa kalena uu dalbaday in la fasaxo taas oo keentay hakad soo jiitamayay tan iyo sanadkii 2022. wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka aysan jirin sabab ay ku hor istaagto horumarka Puntland isagoo tusaale u soo qaatay Jubbaland oo ay siyaasad ku kala aragti duwan yihiin dowladda federaalka haddana aanay taasi hor istaagin hirgelinta mashaariicda halkaasi ka socda. Sida uu sheegay 24 mashruuc oo la qorsheeyay in laga fuliyo Puntland waxaa haatan ka soconaya oo kaliya 7 mashruuc halka inta kalena ay xiran yihiin sababtuna ay tahay diidmada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ay sanad walba Puntland u dirto malaayiin dollar oo lagu kabo miisaaniyadda maamulkaasi. dhinaciisa madaxweyne Saciid Deni ayaa dhawaan sheegay in uusan ogolaan doonin wax mashruuc ah oo leh dana gaar ah ama ku saleysan ujeedooyin siyaasadeed iyo dhaqaale oo ka baxsan danta guud. midowga Yurub oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya USOM ayaa soo gabagabeeyay dowlatus ciidan oo loogu magac daray Green Shield. dowlatuskan oo ka dhacay xarunta tababarka General Dagabadan ee duleedka Muqdisho ayaa lagu sheegay inuu calaamad u yahay iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo midowga Yurub iyo Afrikaanka. waxaana markii ugu horeysay ay si wadajir ah u qeybanayeen hogaaminayeen uguna qayb qaateen dowlatuskan oo mid amni ah. ujeedada dowlatuskan ayaa ah diyaar garowga xaaladda amni ee adag sida qaraxyada, miinada la dhigo wadooyinka iyo weerarada ka dhaca foolka taas oo muujinaysa in xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya beesha caalamka iyo hay'adaha ammaanka Soomaaliya uu noqday mid sare u kacay isla markaana xoojinaya xirfadda iyo kartida ciidamada Soomaaliyeed. dowlatuskan ma ahayn kaliya tababar waxa uu ahaa fariin cad oo muujinaysa in guulaha la gaaro marka la shaqeeyo lana wadaago hanaanka shaqo sida uu yiri mid ka mid ah ka qaybgalayaasha. amnigu markasta waa muhiim in la iska kaashado isla markaana la tayeeyo ciidamada Soomaaliyeed tababarkooda iyo qalabkoodaba. midowga Yurub ayaa sheegaya in iskaashigan uu ka turjumayo rajada ah hay'adaha amniga ee Soomaaliyeed in ay noqoto kuwo adkaysi leh nabad ay ka timaado gudaha dalka iyo amniga Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidamo xirfad leh oo Soomaaliyeed iyadoo lala kaashanayo saaxiibo caalami ah oo daacad u ah Soomaaliya. safaaradda dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Turkiga ayaa ku guuleysatay in xuduudda Turkiga uu la wadaago dalka Iran ay ka soo dhaafsiyaan muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Dr. Mustafa Cali Macalin oo dhaawac fudud ka soo gaaray magaalada Tehran kadib weerar ay Israa'iil halkaasi ku qaaday. war qoraal oo ka soo baxay safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa shaaca looga qaaday in Dr. Mustafa Cali Macalin uu wadanka Iran dhakhtarnimo ku bartay kana mid ahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ilaa 10 lagu qiyaasay oo wadanka Iran wax ku barta. mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ayaa tilmaamay in maalmahan ay ku mashquulsanaayeen in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Iran ku sugan laga soo kaxeeyo halkaas oo haddii magaalada ay ku sugan yihiinna ay ku dareemayaan amni xumo. safaaradda Soomaaliya ee Ankara ayaa uga mahadcelisay dowladda Turkiga oo sheegtay in ay u fududeysay sidii Dr. Mustafa loo soo gaarsiin lahaa wadanka Turkiga si uu halkaasi uga sii gudbo wadankiisa Soomaaliya. xaaladda Iran iyo Israa'iil u dhaxaysa oo faraha ka sii baxaysa awgeed waxa ay safaaradda Soomaaliya ee Ankara ay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Iran ugu baaqday in ay la soo xiriiraan safaaradda haddii ay doonayaan inay ka soo baxaan dalkaasi waxaana ay baraha bulshada kula wadaagtay telefoon ay kula xiriiraan safaaradda.
war soo baxay ayaa sheegaya in dadka ku waxyeeloobay duqeymaha Israa'iil iyo Iiraan ay ku jiraan dad Soomaali ah sida BBC uu u sheegay Axmed Cabdi oo degan magaalada Qum ee bartamaha dalkaasi. madaxweynaha maamulka ICC Khaatumo Cabduqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa si kulul uga hadlay dhacdo kufsi wadareed oo magaalada Laascaanood loogu geystay laba hablood oo walaalo ahaa taas oo si weyn u gilgishay bulshada magaalada Laascaanood. madaxweyne Firdhiye ayaa amaanay hay'adaha amniga kuwaas oo gacanta ku soo dhigay dhammaan eedeysanayaasha ku lugta lahaa kiiskaasi. waxa uu carabka ku adkeeyay in eedeysanayaasha ay si degdeg ah loo horgeyn doono cadaaladda. maamulka ICC Khaatumo waxaa si adag uga go'an difaacaya karaamada xuquuqda haweenka. tallaabada aan qaadayno waxa ay damaanad qaadaysaa in gabdho ka reer ICC Khaatumo aysan dib dambe u ciiloobin ayuu yiri madaxweyne Firdhiye. madaxweynuhu waxa uu si adag u dhaleeceeyay ciidamada booliska ee u ogolaaday mid ka mid ah eedeysanayaasha inuu u fariisto imtixaanka shahaadiga ah isaga oo arintaasi ku tilmaamay mid sharaf ku dhac u ah ICC Khaatumo iyo hablaha kale ee imtixaanka u fadhiya sida markaasi uu sheegay madaxweynaha maamulka ICC Khaatumo. ugu dambeyntiina warar dheeraad ayaa ka soo baxaya warar qorsheysanaa oo xalay ciidamada macuusliyada gobolka Hiiraan ay ka fuliyeen deegaanka Ceeldheer Buraale ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada hoostaga. ciidanka macuusliyada ayaa wararkan si gaar ah ugu beegsaday goobo la tilmaamay in maalmihii la soo dhaafay isku urursanayeen dagaalamayaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. sarkaal ka tirsan ciidanka macuusliyada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in wararkan uu ahaa mid ay kaga hortagayeen abaabul ay kooxdu ka wadeen deegaanka Ceel Buraale waa deegaanka Ceeldheer Buraale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. sarkaal u hadlay macuusliyada Hiiraan ayaa Hiiraan online u sheegay dhankiisa in howlgalkan khasaare xoog leh ay ku gaarsiiyeen Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen ku dhawaad 10 xubnood oo ka tirsan kooxda. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta wararkii aad kala socoteen warbaahinta Hiiraan online nabadiyo warsan.